waxay burcadii hore burburka ka horeeyay dad miyi iyo magaalo isku dar oo ilaa gobonnimo doonkii nolol wanaagsan ku wada nool ceel iyo cawsba kala qoqobnaanta iyo kala urursanaanta aynu xaafada noqon qolo waliba meesheedii isku koobtay miyaysa aamin darrada meesha ka abuurantay waxay ayadu wada saamaysay ummadeenna oo dhan iskuulladu door weyn bay ka qaadan karayaan isdhexgalka bulshada sababtoo ah iskuulladu waa meelaha dee bulshadu wada leedahay ee la isugu yimaado shirkii 1993 lagu qabtay magaalada Boorame waxa uu budugu u ahaa jiritaanka iyo taariikhda siyaasadeed ee Soomaaliland waxa uu shirkani ahaa kii ay wafuud ka kala socday dhammaan beelaha dega Soomaaliland iyo goboladuba isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan isla markaana ka wada doodaan arrimo khuseeya dib u heshiisiinta dhismaha qaranka iyo xalinta dhibaatooyin kale ee horseedeen xukunka laga tuuro xukuumaddii Siyaad Barre dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka ayaa ahaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu shirkani si qoto dheer u gorfeeyay markii la asaasay hanaan amni waxa kaloo shirka lagu aqbalay axdi qarameed la nuqliyay kaasoo wadada u xaaday in la sameeyo haykal dawladeed oo ku dhisan saami qaybsi beelaysan xukuumaddii curdinka ahayd lagu soo dhisay magaalada Boorame ayaa noqotay mid dabooli kari weyday mideyntii beelaha wada dega dhammaan gobolada halkaasoo ay dagaalo sokeeye ka dhex qarxeen beelaha qaarkood kadib muddo 4 sannadood ku dhow oo lagu jiray dagaalo sokeeye ayaa beelaha Soomaaliland mar kale 1997 isugu yimaadeen shirbeeleed ka dhacay magaalada Hargeysa kaasoo lagu soo afjaray tabashooyinkii ay beelaha ay ku kala maqnaayeen sanadihii xigay waxa lagu naalooday xasilooni siyaasadeed oo keentay isbeddello dhaqan dhaqaale oo wax ku ool ah kaasoo suurtageliyay in bulshada reer Soomaaliland halkaa ka aanba qaadaan tallaabadii ugu horreysay ee bilowga nolol cusub inkastoo ilaa heer la taaban karo uu dalku ka soo kabtay huquuqdii dagaalada haddana isdhexgalkii bulshada ayaa ka mid ah meelihii ay raadadkii dagaaladii istaba joogga ahaa ay weli ka muuqdaan arrintan isdhexgal la'aanta ayaa ah mid ku baahsan dhammaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland balse filimkani wuxuu si gaar ah ugu kuurgelayaa isla markaana falanqayn doona bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer isdhexgalka bulshada cilmi baaris ku salaysan bulshada gobolka Togdheer burco taariikh caan ah ayay leedahay waddanku gebigiisuba berigii hore Ingiriisku joogay 2 gobol buu ahaan jiro gobolka waqooyi iyo gobolka Togdheer oo Hargeysa iyo Burco buu ahaan jiray mar dambe ayaa laga dhigay markii Soomaalidu dowladnimada qaadatay ayaa laga dhigay ma garanaysaa goboladan kale la bixiyay markaa Burco waxa weeye xundurta Soomaaliland weeye Soomaaliland oo dhan badha markaad imanka eegto bartanka Soomaaliland weeye halka marka Boorame loogu simo halkaana marka Eergaabo Laascaanood loogu simo waxay muhiimad u leedahay waxa weeye xadul caalam wax alla waxa Soomaali sheegtaana way Burco way soo galaan haddaan reer Burco nahay waxaanu qabnay inaan reer Soomaaliland aan u hayno Burco meesha hadii goor taladu ay ka soo go'deen aanu nahay oo hadii isticmaalka la eediyo iyo hadii jamciyada la sameeyo siyaasiyiina iyo hadii wax la dooranayo iyo hadii waqtiga jabhada la sameeyay dadka spirit sareeya Soomaaliland kale aynu soo haysano markii waxyaabo ma garanaysaa muwaadinimada aad ugu dheereeya
burco waxay ka mid tahay magaalooyinkii ay sida ba'an ay u saameeyeen dagaaladii dalka isaga dambeeyey. burcadii hore burburka ka horreeyey dad miyi iyo magaalo isku dada oo wada ceesha oo ilaa gobonnimo doonkii isku dada oo aan hayb lahayn oo nolol wanaagsan ku wada nool oo baayaca mushtari wanaagsan ku wada nool ceel iyo cawsba siyaasad iyo wuxumina kumay dhex jireen dad walaalaa bay ahaayeen. burburkii baaxadda weynaa ee naf iyo maalba lahaa waxaa magaalada burco u dheeraa aafooyin saameeyey qaab nololeedkii bulshada. sidaa aawadeed bulshada reer burco ayaa mar walba ku soo guryo noqonayay magaalo ka duwan tii ay ka qaxeen. raadad badan ayaa dagaalada ka dhasha. horta raadadkaasunbay ka mid tahay iyo burburkaas ee ku soo dhacay ummadda. dhaqankii dadku lahaa waxaa ku soo kordhay dhaqan dhibaato cadaawad colaad. markaa dhaqankan iminka laga cabanaya waxa keenay colaadaa keentay. kolle waxay keentay qoqobnaan bulshadiiyo kala qoqobantay oo dee markuu qabiilkiisii dabada geliyey ama uu ku koobnaaday way ku adkaatay inuu qoys kale ama qabiil kale qofkii uu u gudbo sabab nabadgelyo darre awgeed ama dee isagaan isba taagi karayn xilligaa qabiil la-aan. hadda jeer nidaamka dawliga markuu lumo dadku siyaabo kale u doonaan inay protection u helaan. taasa waxaa keenaysa hadda jeer markaa unugtii adiga kugu dhoweyd inaad kaaga dhawaatid. haddaad dhaqaale abuuraysid, haddaad degsiimo samaynaysid, inaad bal isku daydid inaad protection iyaga ka heshid oo dhibtaa iyo faa'iidada ay qabaanba inaad iyaga kula dhawaatid. arrinkan ayaa ka mid a waxyaabihii keeneen xuduudo ilma aragtiya oo taariikh ahaan loo aqoonsado inay ka dhex samaysmaan magaalada gudaheeda. mushkiladda dalkeenna haysataa waxuu inagoo kala guursanno oo isku wanaagsan oo dadku dhexgal leeyahay ayaa wax dhaceen dabeedna wuu kala xidhmay dadkii markii wax dhaceen. markii inankii la dhaafi waayey inantu dhashay ee ninkii inanta qabay la dhaafi waayey ee ninkii wadaadka ahaa la dhaafi waayey ee ninkii waxaystay la dhaafi waayey ayaa dhexgalkeenni shaki keenoo waa xumaaday waanaynu kala guuray reeru weliyo dabeedna meel buu digay. reernimadii ayaa gundhig u noqotay hanaankii nabadaynta iyo dib u heshiisiinta somalilan ee dhidibada loogu taagay shirkii burco 1991. markii aynu heshiinaynay ee halkan laysugu yimid snm dalka qabsatay dee beelaha aynu u yeedhnay iyo beelihii dega kaleba waxaa lagu heshiiyey in qabaa'il loo yimaado. brisambol buu noqday in horta dadkii iyagoo qoloqolo ah ay heshiiyaan. xal bay ahayd. burco waxa weeyaan way lahayd in la ammaano in loo mahadnaqo waayo magaalada isu keentay dadka intaa leeg xilliga ayay ahayd. xilligaas oo magaalooyinkeenni ay wada burbureen horta dib u heshiisiintii horreysay taasay ahayd. laga bilaabo halkaa nidaamkii beelaysnaa ee lagu hirgeliyey nabadaynta iyo dhisidda xukuumad saami qaybsiya ayaa noqotay awoodda koowaad ee ka taliya arrimaha bulshada.